Aan ku bilaabo magaca Eebe, naxariista guud iyo mid gaar ahaaneed leh. Nabadgelyo korkiina ha ahaato iyo naxariista Eebe. Mahad ideelkeedna Eebbe weyn u sugnaatay. Wacnaan idilkiinba meel walba aad joogtaan. Kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta oo aynu kaga hadli doono macnaha ay leedahay alxamdulillaah iyo weliba faa'iidooyinkeeda. Inta aanan u gudagelin macnaha alxamdulillaah iyo weliba faa'iidooyinkeeda, aan balyaro iftiimiyo ku xamdida Eebbe weyne iyo ku shukrinta Eebbe farqiga u dhexeeyo, maadaama ay yihiin labo isku yara macno dhow. Alxamdulillaah waa erey la xiriira carabka in laga yiraahdo oo keliya, waana Eebbe oo aa uga mahadnaqdo xaalad walba oo aad ku sugnaato, israa iyo daraa, xaalad badhaadho iyo mid dhibaato labadaba. Halka uu shukrigana la xiriiro qalbiga, carabka iyo jawaarixda, sababtooduna oo keliya ay noqonayso nimcooyinka Eebbe weyne ee uu ku siiyey in aad ugu shukriso, ha ahaato mid maal, owlaad, lixaadka, caafimaadka iyo wixii lamid ah. Aan raaciyo tusaale, haddii ay balaayo ama dhibaato ku haleesho, Eebbahay naga hayee oran maysid Eebbe weyne ayaa noogu shukrinaya dhibaatada ku haleesho awgeed, balse waxaad oranay Eebbe weyne ayaa nooga mahadnaqi ii gartay in ay haleesho. Qiso aan maqlay ayaa waxay ahayd sida tan. Laba nin oo saaxiibo ah ayaa wada socdaalay, safar ayay wada galeen. Xilli gudcur ah iyo goob duur ah ayuu labadoodiiba halaq ku wada qaniinay. Kadib ayaa labadii mid ka mid ah waxa uu afkiisa ku soo celceliyey alxamdulillaah calaa kulli xaal. Wuxuu wadaba kii kale ayaa intuu xanuunkii u adkaysan kari waayay ayaa waxa uu ku yiri saaxiibkiisii, adiga ayaa xanuunka nagu sii kordhinayo. Markaasuu saaxiibkii kale waxa uu ku jawaabay, sideen aniga xanuunka nagu sii kordhinayaa? Ninkii kale oo saaxiibkii u jawaabay ayaa wuxuu ku yiri, xamdigaaga faraha badan ayaa nagu sii kordhinaya xanuunka, sababtoo ah Eebbe weyne ma uusan oranay la in shakartum la aziidannakum. Kolkaabuu wuxuu yiri saaxiibkii kaleeto, balaayo ama dhibaato kolkay ku haleesho, Eebbe waa loogu xamdiyaa ee looguma shukriyo. Aayaddana waxa ay tilmaamaysaa qofkii Eebbe weyne intuu uu siiyey nimcooyinkiisa nimco ka mid ah, qalbiga intuu ooga shukriyo, carabkiisana ka yiraahdo, jawaarixdana uu kaga rumeeyo inuu Eebbe weyne u sii aadinayo. Waxaan tusaalaha qisadani u soo qaatay in ay jiri karaan dad inaga mid ah oo xamdiga Eebbe weyne iyo shukriga Eebbe ay isku macno u yihiin, si ay u kala ogaadaan farqiga yar ee u dhexeeya labadaasi macno. Aan usoo laabto mawduuceena maanta ee ku saabsanaa u mahadnaqida Eebbe weyne ee alxamdulillaah. Alxamdulillaah waa dhawaqii koowaad ee uu ku dhawaaqo nabiyullaahi aadam calayhi salaam kolkuu Eebbe weyne u uumay, waana ku bilaabashada 5 suuradood oo ka mid ah kitaabka munasalka ah ee hadalka Eebbe weyne, waxayna kala yihiin suuratu alfaatixa, suuratu lancaam, suuratu alkahfi, suuratu saba iyo weliba suuratu faatir. Waana rukni ka mid ah arkaanta salaada oo ah akhrinta suuratu alfaatixa, la-aanteedna aysan salaadi ansaxaynin. Waana xadiiskii suubanaheena naxariisi nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo lahaa, laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab. Waana hadalka uu Eebbe weyne ugu jecel yahay, waxa ayna ka mid tahay aayaat 7 almathaani. Haddaba u nimaano dhanka fadliga iyo faa'iidada ay leedahay u mahadnaqida Eebbe weyne ee alxamdulillaah ee aanan lagu soo koobi karin qormo iyo muuqaal toona. 1. Jacaylka Eebbe weyne oo aad hesho. 2. Helitaanka roobka iyo barakadiisa ayay sabab u noqotaa. 3. Waa duco midda ugu wanaagsan ee lagu ducaysto, waana xadiiskii Jaabir bin Cabdillaahi uu ka wariyey rasuulka suubanaheena naxariisi nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, xadiidkii ahaa, afdalu dikri laa ilaaha ila allah wa afdalu ducaa alxamdulillaah. 4. Wuxuu Eebbe weyne ku dhaafaa dembiyada. 5. Waa sadaqaad aad baxsatay oo kale. 6. Waa geed jannada aad ka beeranaysid. 7. Waxay buuxisaa miisaanka. gunaanadka iyo gabagabada barnaamijka, dhegaystaha daawadaha qiimiga badan oo Eebbe weyne ugu mahadnaq xaalad walba ee aad ku sugan tahay kol walbaba, uguna shukri Eebbe weynaha nimco walba ee uu kugu manaystay, si aad u noqoto addoon Eebbihii ku xamdiya kuna shukriya. Fadlan adigana nala wadaag hal ama 2 faa'iido iyo fadliga ay leedahay alxamdulillaah, nooguna reeb qaybta hoose ee kommentiska. Waxaana nafteyda iyo naftiinaba Eebbe weyne u weydiinayaa in uu inaga dhigo kuwii Eebbe weyne ku xamdiyo kuna shukriyo mar kasta iyo meel kastaba, xaalad badhaadho iyo mid adag labadaba. Subxaana rabbika rabbil izzati camaa yasifuun, wa salaamun cala almursaliin, walxamdu lilaahi rabbil caalamiin.